bal ka waran daawade haddii 45 sano oo cimrigaada ka mid ah aad xabsi ku qaadato walimana jirdil iyo ciqaab ay ku sii dheer tahay. Assalaamu calaykum, soo dhawaada saaxiibayaal, kuna soo dhawaada Bayaan Media. bal ka waran daawade haddii 45 sano oo cimrigaada ka mid ah aad xabsi ku qaadato walimana jirdil iyo ciqaab ay ku sii dheer tahay. sanadii 1977 Falastiin waxaa xabsiga loo taxaabay wiil yar oo 18 jir ah. wiilkan oo lagu magacaabo Naa'im Al-Barghouti oo gali doona rikoorada caalamiga ah, maxbuus kii uu waqtiga dheeraa dhinaca siyaasadda, laakiin asbuucan ayaa xabsiga laga soo daayay kadib maxaabiis isdhaafsi dhacay dagaalkii Qasa kadib. isagoo 67 jir ah, dulmi iyo jirdil ayuu kala kulmay xabsiyada gumeystaha. si aynu u fahanno duruucda sheekada, aynu wax yar dib u laabanno 23 Oktoobar 1957 ayuu Naa'im Al-Barghouti ku dhashay mid ka mid ah tuulooyinka Ramallah ee daanta galbeed Falastiin. yaraantiisii halkaas ayuu ku soo qaatay, laakiin Abriil 1977 asagoo isku diyaarinaya imtixaanka dugsiga sare ayaa la xiray asaga iyo walaalkii ka weynaa oo lagu magacaabi jiray Cumar iyo adeerkiis, ayadoo lagu eedeynayo dilka askari Falastiini ah waqooyiga Ramallah. intaas looguma sameeyay waxaa dusha laga saaray eedo kale oo been abuur ah, sida inuu qarxiyay maqaayad ay leeyihiin Yuhuud. saddexdii wiilba waxaa lagu xukumay xabsi daa'im amrigaha ku furto. bal qiyaas xaaladda arday isku diyaarinayay imtixaanka dugsiga sare oo lagu xukumay xabsi daa'im. haddaba saaxiibayaal, sanadii 1985 waxaa dhacay heshiis maxaabiis isdhaafsi ah. Israa'iil iyo jabhaddii xoreynta shacbiga Falastiin waxaa ku soo baxay maxaabiis isdhaafsigaas aabihiis iyo walaalkii ka weynaa ee Cumar, halka ay Israa'iil diiday inay sii dayso Naa'im Al-Barghouti, laakiin mar kale ay dib u xiri doonaan walaalkiis Cumar. Naa'im wuxuu ka mid ahaa Fatah, laakiin xabsiga asagoo ku jira ayuu ku biiray dhaqdhaqaaqa Xamaas. sanadii 1995 18 Oktoobar 2011 ayuu ku soo baxay heshiiskii askarigii Israa'iiliga ahaa ee la dhaafsaday boqolaal Falastiiniyiin ah. kadib markii uu xabsiga ka soo baxay ayuu guursaday gabar lagu magacaabo Imaan Naafic oo ahayd maxbuus hore oo xabsiyada gumeystaha 10 sano ku soo qaadatay, laakiin kadib 3 sano oo xor ahaa ayay mar kale dib u xireen 2014. howlgal ballaaran oo gumeystuhu sameeyay kaas oo lagu beegsanayay inta badan maxaabiistii ay ka sii daayeen xabsiyada, waxayna ku xukmeen mar kale xabsi daa'im. laakiin asbuucan ayuu ku soo baxay maxaabiis isdhaafsigii marinka Qasa. waa qiso muujinaysa gumeysiga iyo dhibaatada oo ummadda muslimiinta ku hayo. halkaas ayaynu ku sameynaa saaxiibayaal muuqaalkiina maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullah.